O meu pai matou minha mãe por quê? Matou minha mãe, só não matou meus irmãos, eu tava preso. Aí depois que asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. qisadan maanta idiin haynaa mid argagaxyaan fariir ah, waxaana laga yaabaa inaad rumaysan weydo. dilaa youtuber ahaa, dadku waxay ugu yeedhi jireen dilaagii geesiga ahaa. ninkan isagoo 14 jir ah ayuu geystay dilkii ugu horeeyey kahor inta uusan noqon da-da 20 jirka. wuxuu gacantiisa ku dilay 10 qof, halka mid ka mida dadka uu dilayna uu ahaa isaga aabihii. wuxuu midida geliyey oo ku celcelinayay aabihii ilaa uu ka dhimanayay, wuxuuna ku jeexay laabta aabihii midi kalena soo baxay wadnihii aabihii, kadibna cunay oo calaliyey. subxaan allah walciyaadu billaah. bahalsanaa ninku. muuqaalkeenan waxaan ku eegaynaa qisada mid ka mid ah raggii ugu arxanka darnaa ee ay dunidu aragto. Pedro Rodriguez Vilho, youtuberkii cunay wadnaha aabihii. magacaygu waa Xamse Axmed. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. ninkan qisadeena maanta aynu kaga hadlayno waxa lagu magacaaba Pedro Rodriguez Vilho. wuxuu dhashay bishii Juun sanadii 1954, wuxuuna ku dhashay dalka Brazil, gaar ahaan beer ku taalay magaalo lagu magacaabo Zantarita de Zubuki. waxaa dhalay aabaad u dhib badnaa, macnaha aabaad u kulkulul, waxaa xaaskiisa dili jiray. nolosha Vilho waxay ku bilaabatay si adag. wuxuuna dhashay isagoo madaxa dhaawac kaga yaalo. dhaawacaas ayaana keenay aabihiis oo garaacay hooyadii iyadoo uur lahayd. ninkan isagoo 13 jir ah ayuu bilaabay ugaadhsiga dadka, wuxuuna makiinad sonkorta lagu sameeyo ku dhex tuuray in adeerkiisii ka weynaa, inkasta oo laga soo badbaadiyey inta uusan ku dhiman meesha. balse dilkii ugu horeeyey wuxuu u geystay duqa magaalada ku-xigeenkiisa isagoo 14 sano jir ahaa. dilka ayaana sabab u ahaa in gudoomiye ku-xigeenka magaaladu uu shaqada ka soo aariyay Vilho aabihii, kaas oo lagu soo eedeeyey inuu raashin ka xaday iskuulkii uu ka ahaa waardiyaha. bakhaar ku dhex yaalay Vilho ayaana go'aansaday inuu dilo ninka aabihii shaqada ka buriyey. wuxuuna soo qaatay qori uu lahaa aabihiis, kaas oo beer ay xaafadu lahayd lagu ilaalin jiray. kadibna sidii ayuu ku dilay ku-xigeenkii duqa magaalada. xilli habeen ah intaa kadib Vilho wuxuu raadiyey tuugii dhabta ahaa, macnaha aabihii tuug muu ahayn. wuxuuna raadiyey tuugii ka dambeeyey in la fadeexeeyay aabihii, sidoo kalena xaday raashinka. wuxuuna ogaaday in ninka arrintan ka dambeeyey uu ahaa waardiye kale oo ay aabihii wada shaqayn jireen, saaxiibana ahaayeen. kadibna isagiina wuu u dhameeyey oo wuu dilay. ninkan ayaana magaalada ka cararay maadaama oo boolisku baadagoob aan ku hayeen. wuxuuna imid magaalada Subaula si uu noloshiisa halkaa uga sii wato. halkaas ayuuna ka bilaabay ugaadhsiga dadka iyo inuu dhaco tuugada. wuxuuna bilaabay inuu la shaqeeyo kuwa daroogada ka ganacsada. Vilho isagoo oo ah 16 sano jir ayuu dilay nin caan ku ah ka ganacsiga daroogada. kadib markii khilaafaad soo dhex galay ninkan, Vilho ayaa aaminsanaa in haddii uu dilo qof ah dambiile uu noqon doono qof wanaagsan. wuxuuna bartilmaamaysan jiray dadka ku wada galay dembiyada waaweyn, gacan ku dhiiglayaasha sida Vilho oo kale, ilaan jacayl wuu ku dhici karaaye. Vilho ayaa jeclaaday haweeney lagu magacaabo Maria Olmia oo ay wada noolaayeen kahor inta uusan dilin nin ahaa burcad oo u dhashay dalka Brazil. dilka Olmia ayaa ahaa aargudasho oo dhibaatooyin uu geystay ayaa lagaga aargoostay xaaskiisii uu jeclaa. sidaa ayaana lagu dilay Maria Olmia. intaa kadib Vilho wuxuu bilaabay inuu dabagal ku sameeyo dhammaan dadkii uu ku tuhunsanaa dilka xaaskiisa. dhowr nin oo ahaa burcadbeed ayuu soo qabtay, kadibna uu jir dilay isagoo weydiinayay cidda ka dambeysay dilka xaaskiisa. kadib markii ay sheegi waayeen uu dilay dhammaantood. maalmo kadib wuxuu helay ninkii dilay xaaskiisa, isna dhulka ayuu dhigay oo kuwii hore ayuu ka dabageeyey. Vilho ayaana ugu dambeynta la xiray 24 Maarch sanadii 1973. isaga iyo nin kale oo ku eedeysnaa kufsi. su'aalo kala duwan ayuu weydiiyey intii ay gaadhiga sii wada saarnaayeen. ninkii ayuuna ka takhalusay ugu dambeyn, macnaha gaadhiga ayuuba ninkii ku dhex dilay.
intaa kadib markii saldhigga booliska la tegay ee la furay albaabkii gaadhiga waxaa la arkay Vilho oo ah wadadhiig iyo ninkii kufsiga ku eedeysnaa oo ah meyd. askarti oo yaaban ayaa Vilho weydiisay sababta uu dilay ninkan, wuxuuna ku jawaabay anigu ma jecli in aan arko qof dambiile ah. la yaab isagu isma arka miyaa horta. maalmo kadib waxaa la soo istaajiyay maxkamaddii waxaana lagu xukumay 128 sano xadhiga. sidaas ayuuna maxbuus ku noqday. laakiin arrinta la yaabka noqotay ayaa ahayd in markii uu xabsiga galay uu dilkiisu sii bateen. wuxuuna dilay 47 qof oo ahaa maxaabiista jeelka kula xidhnaa iyadoo ayna ogaanin ilaalada xabsigu. mid walba wuxuu weydiinayay sababta loo soo xidhay ka hor inta uusan dilin, wuxuuna si gaara u ugaadhsanayay kuwa kufsiga dilalka loo soo xidho. Vilho wuxuu sidaa ku sii socdaba oo uu ugaadhsaday dambiilayaashaba. waxaa la soo gaadhay maalin madow. maalin isagii qoyskiisaba u ahayd maalin madow, maalintii ugu xanuunka badnayd noloshiisa. maalin uu cunay wadnaha aabihii, maalin uu maqlay in la gowracay hooyadii. maalintaa waxaa dhacay mid ka mid a dalalkii ugu caansanaa uguna foosho xumaa taariikhda abid. Vilho ayaa markan dilay aabihii. oo sidee ayuu dilay aabihii? Vilho miyaa xabsiga ka baxsaday kadibna aabihii soo dilay? maya arrinku sidaa ma aha daawade ee odayga ayaa maxbuus noqday. sababta loo soo xidhayna waxay ahayd in xaaskiisa uu dilay amba Vilho hooyadiis uu dilay. Vilho ayaa maalmo kadib ogaaday in sababta aabihii loo soo xidhay ay ahayd inuu gowracay xaaskiisa, waa isaga hooyadiisa. kadibna wuxuu go'aansaday inuu u argudo hooyadii oo uu aabihii dilo. sidii ayuuna sameeyey. xilli habeen ahayd midi uu ka soo helay maxaabiis kale ayuu ku gowracay aabihii. kadibna hilibkiisii ayuu habeenkaasoo dhan jarjarayay, wuxuuna cunay wadnaha aabihii. isagoo dib ka sheegaya mar la waraystay ayuu wuxuu sheegay inuu ku raaxaysanayay dilka aabihii. Pedro Rodriguez mar kale ayaa la saaray maxkamad, waxaana lagu soo oogay 270 sano xabsi ah. wuxuuna xukunkiisu noqday 400 sano oo xabsi ah. balse marka la eego sharciga u yaala dalka Brazil, muddada ugu badan uu qofku xidhnaan karo xabsi ku jiri karaa waa 30 sano. sharcigaas ayuuna ku badbaaday Vilho, balse Vilho ayaa 4 sano oo dheer ku qaatay xabsiga maadaamuu dilka ka dhex geysanayay gudaha xabsiga intii lagu jiray. waxay maxkamaddu fasaxday sanadii 2007 wuxuuna xor ahaa ilaa Sebtembar 15keedii sanadii 2011. xilligaas oo mar kale la xidhay, laakiin uu ku jiray xabsi guri ilaa 2018. intaa wixii ka dambeysay ninkan xornimo ayuu ku noolaa, inkasta oo dowladda Brazil arrimihiisa ay la socoto. Vilho ayaana sanadkii hore qabsaday shaashadaha caalamka oo dhan kadib markii uu ka soo dhex muuqday YouTube laga leeyahay dalka Brazil si kedis ah. waraysi dheer oo uu halkaa ka bixiyay kana sheekeeyay qaabkii uu dadka u dili jiray, isagoo sheegay ilaa iyo hadda inuu jecel yahay inuu dilo dambiilayaasha. haddaba su'aal daawade, bal ma is leedahay inay saameyn weyn ku yeelatay dagaalkii ka dhexeeyay hooyadiis iyo aabihiis iyo inuu ka qaaday nacayb qof walba oo dila gabadh? amba fikir kale ayaad qabtaa? waan jecelahay inaan fikirkaaga akhriyo. fadlan kommentiga hoose igula wadaag. halkaas ayayna ku dhammaatay qisada Pedro Rodriguez Vilho, dilaagii wadnaha aabihii cunay. saaxiib, halkaas ayuu ku eegayay muuqaalkeena maanta. waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan eed noola dhammaysatay. fadlan like haddaad ka heshay muuqaalada sidan oo kale inaan soo badino channelkana subscribe. مع السلامة، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.